لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الدين يجوابه ذا mahad dhammaanteed ilaahay subxaana wa tacaala bay u sugnaatay isaga ayaanu kaalmo weydiisanaynaa amuuraha adduunka iyo tan aakhiraba nabad dushiisa ha ahaato subanaha rasuulkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam dhammaan ehelkiisa saxaabadiisa aamiin 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 ku darso daawada ogaalkaaga oo ka faa'iideyso su-aalahan diiniga ah iyo jawaabahoodii oo wada socda waana lama huraan inaad diintaada wax badan ka barato maxaa yeelay hadduu wiil yaroo asaagaaya ku weydiiyo wax kamida ama su-aal kamida diinta waad garan weydo sharaf daray ku tahay. malaga suurka afuufaya oo kamid ah malaa'igta, jawaabtu waxaa weeye waa malag Israafiil. waxaad sheegtaa geedka ka baxa jahanamo bartankeeda waxaa la yidhaahdaa saquum. waxaad sheegtaa macnaha magaca Jibriil waa adoon sida uu ku fasiray Ibnu Cabbaas. waxaad sheegtaa masaajidka salaada lagu tukada ay u dhiganto ajar cumro waa masjidka Quba. waxaad sheegtaa meydka xalaasha ahi waa ayaxa ama kalluunka. waxaad sheegtaa dhiigga xoolaha dhiigga xalaasha ahi waa beerka iyo beeryarada. kumuu ahaa ninkii dakhray nebiga dagaalkii Uxud? wuxuu ahaa ibnu qimah. kumuu ahaa yahuudigii nebiga sixray sala allahu calayhi wasalam? wuxuu ahaa libayd binu acsam. waxaad sheegtaa ninkii jebiyey dhooshii nebiga sala allahu calayhi wasalam dagaalkii Uxud? wuxuu ahaa cuqba binu abi waqaas. waxaad sheegtaa gabadhii allah u waxyooday waxa ahayd nebi muuse hooyadii. waxaad sheegtaa magaalada aan cudurka daacuunka gelin waxa weeye magaalada madiina almunawara. waxaad sheegtaa suuraddii sababta u ahayd inuu soo islaamo cumar bin khadaab radiallahu canhu. waxay ahayd suuradda daaha ama suuradda loo yaqaano daaha. waxaad sheegtaa suuradda shafeeco qaadaysa qofka akhriya waa suuratu malak ama saad u taqaano tabaarak. waxaad sheegtaa aayadda koobaysa dhammaan xuruufta carabiga waa aayadda u dambeysa suuratu alfatx ama suuradda alxamdi. waxaad sheegtaa asxaabigii la dilay isagoon weligii alla u sujuudin. wuxuu ahaa cumar binu thaabit. wuxuu soo islaamay dagaalkii Uxud waxaana la dilay isla maalintaas. wasalaamu calaykum. لا يزال الخير حيا لا يزال